mararka qaar markii la dhahayo dhalmada waxa ka xanuun badan koriimada. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. asxaabtayda qaaliga walaashin ziyo idin leh aniga caafimaad qaba meel walba dunida ay ka joogtaan waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan soo dhawaada waa mar kale iyo video cusub. Videogan ayaa maanta waxaan uga hadli doonaa aabo Soomaaliyeed intaan qiso aqrinaaye intaan qiso maqlaaye inta qiso la iiga soo sheekeyna wallaahi qisadan ka xanuun badan ma aanan arag. Caruurtaada adiga aad dhashay gacantaadan aad ku korisay ugu dambeyn xabsi ha ku dhigaan ama amar yacni oo ayaga ee bixiyaan ha lagugu xiro ama waxba ha kuugu marqaati furaan soo xanuun maahan. Aabahan Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamed Daawud ayaan qisadan cabaar ugu hadli doonaa. Maxamed Daawud ayaa waxa uu dhalay 2 caruur. Caruurtaas oo ah wiil iyo gabar. Hooyadood mar hore ayay kala tageen. Caruurtiisa asiga ayaa gacantiisa ku soo koriyay. mararka qaar markii la dhahayo dhalmada waxa ka xanuun badan koriimada. Hooyad markay ku dhasho matalan ay ku soo korisaa barir oo kale ama yacni ayeeyo kale qofka ku dhalay iyo qofka ku koriyay adiga waxa xog u jeclaynaysaa qofka ku koriyay because qofkan yacni galgaceel badan uu soo tusay waqti badan uu kugu bixiyay sida adiga aad ku noqon lahayd qof awood leh qof meel iska soo saarto qof karti leh ama wiil ahaw ama gabar ahaw ma maqasheen ayay koris iyo alla ka qaad ayay koriska wixii loo dhahay ayay koris iyo alla ka qaada waxay tahay yacni mayac yacni dalackii ugu dambeeyay ayay kugu soo korinay isla habrirtoo kalena sidaas ayay ku korinaysaa aad ayaan u jeclaanaysaa markii ay hooyada iyo habrirta ay ku soo wada koriyaan sideedoo kale wallahi qof dalaca noqonay ilaahay ha u deesto nin walba ee hooyadiisa u nooshahay haddana nin walba ee habrirtiisa ee u nooshahay eena soo korisay sideedoo kale. Intaas markaan ugu soo gudbo qisadeena aan usoo laabano taa waxaan ugu hadlayay koriimada yacni galgaceelka ee ku siinayso iyo xiisaha iyo jaceelka yacni qofku soo koriyay noloshaada inta ka dhimami iloobaysid xataa qofkaas hadduu dhinto xataa adiga waa xasuusnaanaysaa waa u duceynaysaa ilaahay ba hadduu kaa hormaray kaas geerida waa xaq waa loo joogaa laakiinse hooyooyinka qaarna waxaan dhihi lahaa hooyaba maahan. Gabadhan ee Maxamed kala tageen ee isqabeen markii caruurta aabahooda soo koriyay way ogaatay yacni meeshaan in ay makaan ku lahayn ay boos ku lahayn waayo caruurta way ka tagtay aabahooda korsaday aabahooda soo weynaysiistay wixii istiri ninkan iyo ilmahan sidee ku kala dishaa hadda ilmo ma la dhihi karo dadkan waa dad waaweyn laakiinse hooyadan balaayo wixii ay ku fikirtay ay maskaxdeeda ka shaqaysiisay aabahan oo ma aragtay in kastoo ilmaha yacni qurbaha lagu dhalo ilmaha kale ay ka dhib badan yihiin marka hadan ku soo barbaarisan ay ka sii dhib badan yihiin. Maxamed Daawud waa aabo Soomaaliyeed waa aabihii ugu wanaagsanaa dunida waayo caruurtiisa sida aragteen geed dheer iyo geed gaaban ayuu u koray sidoo ilmahan u korsado u barbaarsado ee bari ka maalin ee u noqdaan ilmo aan batabin bahooyo laakiin alqaada meel shay ugu soo dhacdayba waatan dalq soo tiri. Soomaalida ayaa badanaa waxay dhahaan wiil gabar waa hooyadeed gabar waa hooyadeed sida Soomaalida ay dhahaan waay laakiinse gabdho badan waxay jiraan aabahooda jecel aan aabahooda laga marin oo aabahooda aad iyo aad u jecel gabadhan hooyadeed waxay u sheegtay kulay wiilka ku soo haray sidoo isla sida loo dhahay gabar waa hooyadeed ayaa haddana wiilkan waxaa loo yiri mugtaa wiil waa aabihii ma yaqaan wiilka wax qaaday hooyadii labadeeda cunug ay ayadan geed dheer iyo geed gaaban waxay u kortay sida aabahooda ugu diri lahayd. Waa dad waaweyn waa dad laga rabo maxkamad in markii la istaagay ee marqaati noqdaan waa dad hoggaan iyo macnaheedu godkan la qodayo loo yahay godkii aabooda lagu ridaayay ayagana ay carcar u yihiin in ay godkaas aabooda ku ridaan. Hooyadii waxay ku tiri aabiin waa dacweynaa aabiin waxaan u baahnaa in aan marqaati iigu noqotaan koriimadii aaway jaceelkii aaway waxaan ku dhahay dhibaatado aabiin la soo maray aabay waxaasoo dhan forgada iska dhaheen hooyadooda la safteen waxay dhahay hooy maxaa jeceshahay waxaan jeclahay aabiin inaan dacweeyo oona aan maxkamad la koro
way soo boodeen waayay anaga markhaati ku inkastoo uu wiilka uu maxkamadda istaagin laakiinse ficilkan hooyadiis la timid raaliyo ugu ahaa inkastoo walaashiisa uu cisho waayay hooyadiisna uu qaladka dhiiwa hooyo aaba la xirma maxaa kale u baahan tahay marka ma aysan dhicin wiilkii raayay hooyadiis uu soo qaatay wuu ogolaaday balse gabadhii waatan maxkamaddii istaagtay maxamed daawud isla waqtigaas ayaa la xukumay waxaana la siigay saldhiga waayo gabadhiisa ayaa marqaati ku furtay Soomahan wiilka inkastoo oo marqaati uusan furin oo yani maxkamadda uusan istaagin laakiin waa mid daa hoostiisa kala shaqeynayo oo fikrada hooyadiisa heesto ugu dambeyn maxamed daawud saldhiga la dhigay waa la xiray markii la xiray muddadii uu xirnay ayaa waxa ka dhimatay hooy macaan xanuun geeri ku soo gasho geeridu ugu xanuunka badan waa geeridu waalidiintaada hadduu aabba ahaa lahaa ama hadday hooyo ahaa lahayd wadaas geeridu adduunka ugu xanuunka badan tan soo raacda waa walaaladaa ama walaashaa ama walaalkaa maxamed daawud asigoo saldhiga ku jiro ayaa hooyadiisa geeriyootay markay geeriyootay waxaa loo sheegay in hooyadiisa ay dhimatay aad ayay u xanuun badan tahay Soomahan adigoo xiran ayaa hooyada dhimatay meel aad tacsi ugu guda kartid malahan ma soo wici kartid dalkii walaalada ma wici kartid tacsi ma ka guda kartid adiga ruuxaaga maanta in ay dib kugu dhacay ma dareemi kartid because dhibaa ku haysto dhula jiftaa cunto xumaa ku hayso maqsul xumaa ku hayso waxa xuriyad dara ku hayso xuriyada dunida wax ugu wanaagsan malahan isla dhibkaas uu dareemayaa dareensiiyay yaa gaarsiiso oolaadiisa maahan soo caruurtu gacmihiisa ku soo koriiso maahan dhibkaas wax uu keenay aniga aadan ula damqaday aad iyo aadan ula xanuunsaday asxaabta qaaliga intaan ayaan ku soo gabagabeynayaa hadaa hore ila joogtay waa ku mahadsan tahay fiidiyowan daabshiisa haddii aad igu cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanayaa si diiran kaaga codsanayaa in aad subscribe i saarto adigoo mahadsan walaasha ziyo kule is xisaabi